golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa xayiraadda hubka Soomaaliya ku soo rogay January 1992 markaas oo marxaladda dalku ay ahayd mid dagaal cunaqabataynta ayaana la qafiifiyay marar kala duwan si taageero loogu muujiyo dawladihii dalka soo maray Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku celisay dalabka ah in laga qaado xayiraadda hubka ee saaran muddada dheer madaxweyne Farmaajo ayaa khudbadiisii shirkii London ku soo daray in laga qaado xayiraadda hubka dagaalka ay dawladdu kula jirto al-shabaab ayuu ku tilmaamay sabab muhiim ka dhigaysa in Soomaaliya laga qaado xayiraadda hubka haddaba sidee bay ku timid in Soomaaliya lagu soo rogo xayiraadda hubkan Soomaaliya waxa looga joojiyay inaanu Soomaaliya ka jirin ama wali ka hana qaadin maamul hana kara hub hadii la siiyo oo sadaqa lagu siiyo ama haday soo gataan hana kara inuu wali ka jirin oo laga baqaayo dhibaatada ka jirta inay dhibaato sii badato waana muuqataa dadka Soomaaliyeed wali يعني isku mana raacsana dawlad waa la sameeyay laakiin si sax ah isku mana raacsana laano shacbigu wali hubaysan yihiin meelaha ay joogaan ma taqaana waa iska iyaga baa dawlad ka ah marka shacbi hubaysan oo hubkooda aanu tiro koobneen oo aanu control lahayn oo cid loo raacdo aan lahayn oo maalin kasta la isku dilay in hubka in lagu sii daro in la ogolaado aad ay u adag tahay Soomaaliya waxaa ka jira ciidamo kala taabacsan dhinacyo kala duwan tusaale dawlad goboleedyada dalka ayaa samaystay ciidamo u gaar ah oo iyaga ka amar qaata waana kuwa hubaysan oo leh kaydad hub oo iyagu ay maamulaan sidoo kale waxaa jira ciidamo ka amar qaata hogaamiye ama mas'uul ka tirsan dawladda kuwaas oo aan ku jirin diiwaanka askarta ee dawladda waxaa shaki laga muujinayaa helista awood maamul oo xaqiijin karta tirakoobka ama xakamaynta hubka gacanta shacabka galay iyo kan ay isticmaalayaan kooxaha ka soo horjeeda dawladda waana mid ka mid ah sababaha adkeynaya in xayiraadda hubka laga qaado Soomaaliya anagu waa soo dhaweynaya horta xayiraadda in la qaado waxa ku jira waxaan ka hadlayaa markaas waa ku sheego waa madax banaanida Soomaaliya iyo qorshaha ay iyadu dabacsan tahay laakiin hadda ma ahan anuguna u maleynaya madaxda qaranku hadda inay leeyihiin hubna loo soo dejiyo waxa ka hor hubna soo dejiyo dadka Soomaaliyeed boqolkii konton waa hubaysan yahay hadda horta waa in la maareeyaa hubka la keenaya oo 18,000 ama 20,000 oo ciidan loo keenaya mid konton jibaar ka badan baa dalka yaal horta waa in la maareeyaa kan oo hubka kan gacanta ugu jira dadka shacbiga iyo qabaa'ilada iyo beelaha horta waa in ayaga marka hore laga yeeshaa barnaamij Soomaaliya cunaqabataynta waxa laga qaadaa koow markii la helo maamul dawlo oo Soomaali leedahay oo xuduudda Soomaaliya ka bilaabatay badweynta Hindiya iyo Kenya ka bilaabatay 680 waaye ta ku xigtay Soomaaliya iyo Itoobiya 1600 kilomitir waaye Djibouti iyo Soomaaliya 58 kilomitir waaye badweynta Hindiya inta aan ku leenahay waa 3,200 waaye iyo airspace oo furan intaas dawlad mas'uul ka ah oo qoryaha ay haysato hubka ay haysato nin oo duty ah oo waajib leh kali ah oo sito inta kale la xareeyo askariga jooga saldhiga qoriga oo saldhiga uga tago askariga jooga militariga oo saldhiga base-ka oo degan yahay qoriga uga tago suuqa soo faramiran oo aado hadduu bustoolo qaadanayo ay qoran tahay hadduu dhibaato ku geysta la soo qabanayo qori kale hadduu meel kale soo waddanka soo gala la soo qabanayo oo aan total control of your political security markaas ayaa la dhihi karaa Soomaaliya waxa laga qaadi doonaa cunaqabataynta dawladda Ethiopia ayaa taageertay dalabka Soomaaliya ee ku aadan in laga qaado xayiraadda hubka taas oo su'aal gelisay ujeedka Ethiopia ee ah in Soomaaliya loo fasaxo inay la soo degto hub ama la siiyo aniga waxa ila tahay arintaas iyadahay mid waa malayn kariya Ethiopia warshado badan oo ay samaysatay hadday suuqaas inay masaalix ugu jirto dabcan waxay ka mid tahay dalalka hubka laga diran karo laakiin waxay su'aal gelinaysaa barnaamijka oo dhan bayba su'aal gelinaysaa arintaas ayadaahi oo ah wuxuu yiri ninkii muxuu ninka caanaha u toosiyay uu yiri hebel caana ma siin jirin ma doorshaan baa uga dhacay buu
muddo ku dhow 30 sano Soomaaliya ma helin dawlad maamusho dhamaanteed waana sababta ay koox walba goonideeda isugu hubaysay taas ayaana ka mid ah sababaha hortaagan in Soomaaliya ay fursad u heshay laga qaado xayiraadda hubka Cabdi Fataax Axmed Cali Goobjoog Muqdisho